Somali humaniterian development association oo marka magacooda la soo gaabiyo loo yaqaan SOHDA oo ah urur dhalinyaro ay ku midaysan yihiin dhalinyaro aqoon-yahano oo fadhigoodu yahay magaalada Muqdisho ayaa maanta deeq lacageed oo dhan $1,000 ku wareejiyay guddiga dhismaha wadada ka baxda beledweyne ee xiriirisa gobolada Hiiraan iyo Bakool oo maalmihii u dambeeyay uu dhismo ka socday. dhalinyaradan ayaa sheegay in lacagtan ay si tabarucaad ah isaga aruuriyeen kadib markii ay arkeen qaabka ay u socoto dhismaha wadada sidaasna ay ku go'aansadeen in doorkooda awoodeed ay ka geystaan. Axmed Xuseen Daahiye oo wakiilka ahaa ururka SOHDA ayaa faahfaahin ka bixiyay deeqda lacagta ay u soo wakiisheen SOHDA. dhalinyaro walaalaheena reer Muqdisho ee jaamacadaha dhigta ardayda ayaa waxay noo soo wakiisheen inaan lacag dhan $1,000 ku wareejino guddigii wadadan dhisay. ma aha wax ku deeqay NGO ama hay'ad ama dad kale waxa bixiyay dhalinyaradii magaaladan ka tagtay ee jaamacadaha u aaday magaalada Muqdisho waxa ay ku deeqeen waa wax yar oo jeebkooda ay ka soo gooyeen oo ah $2 transportation ka jaamacadda inay ku aadaan looga tirgal bishi ay iska soo gooyeen markay arkeen wadadan dhismaheeda sida wanaagsan iyo abaabulka ka socday waxay go'aansadeen inay ka qayb qaataan sidaas awgeed galabta ayagan wakiil ka nahnay in lacagtaas soo gaarsiino wadada ay noo soo wakiisheen marka waxaan rabnaa inaan guddiga wadada ku wareejino lacag dhan $1,000 annagoo matalayna dhalinyarada jaamiciyiinta ee xamar ku nool ee ku midaysan ururkan la SOHDA marka lacagtaas $1,000 rabnaa inaan guddiga wadada ku wareejino. Sheekh Maxamed Ibraahim Xasan oo kamid ah guddiga dhismaha wadada ayaa deeqda lacagta ka gudoomay SOHDA waxaana uu u mahadceliyay ururka dhalinyarada isagoo sheegay in ururada kale ee reer Hiiraan ay ka qayb qaataan dhismaha wadada. waxaan u mahadinayaa dhalinyarada reer Hiiraan ee jaamacadaha dhigto ee ku nool magaalada Muqdisho waxay mudan yihiin abaalmarin weyn ilaahay xaqiisana ka rajaynaa insha Allah taala abaalmarintaas oo ilaahay xaqiisa ay keeli doonaan. waxaan ognahay nin gurigiisa ka tagay ee jaamacad baranayo ee baabuur raacayo ee muqaaxid saaran ee horay gadaal baabuur u raacayo wixii hooyadiis iyo aabihiis ugu talagalin in uu soo dooro inuu ku dhisto wadankiisa ninkaas wuxuu leeyahay mudnaan khaas ah ilaa agtiisana uu helayaa agtanagana dhalinyaradaas waxay ku leeyihiin sharaf weyn iyo magac weyn. waxaan sheegaynaa on xalay iyo shalay aan u taagnin baaladina shaqeynaysi waxaasiin inaan haynin awadan aad iyo aad u faraxsanahay galabto oo inaga farxiyeen khayr Allah siiyo dhalinyaradaas waa dhalinyaro reer Hiiraan waxaan bashaareynaa dhalinyaradaas in ay khayr badan iyo barwaaqo dhalinyarada kale ayaga amal ah ay ku daydaan wax ayaga ka wanaagsan oo lagu dayn lahay malaha. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ugu dambeyn nabadoon habarwaa Yuusuf Nuur iyo Sheekh Cabdiraxmaan Isaaq Cabdi oo ku kala hadlayay afka odayaasha iyo culimada ayaa dhankooda ka mahadceliyay deeqda lacagta ee maanta la gaarsiiyay guddiga dhismaha wadada. aad aan bogaadinaya dhalinyartii isxilqaamay waxa waaya $1 dalkaada $1 ku dhisa intii isku dardaray meeshaan macnaha ku soo dhiiriday keenay dhalinyartaasaan macnaha aad aan bogaadinaya waxa waaya mahada ka gaarto wax fiican oo hididiile leh oo lagu dayin karay qabteen wax maalkooda iyo waxa waaye iyo magacooda Allah barakeeyo ilaahay waxay hayaan wax iimaan barakale Allah ugu dhiga ayaga intaasaan leenahay waxaan leenahay marka dhalinyarta mid ma aha laba ma aha kaligood ma aha waa badan yihiin soo raacaano ha ku dhiiradaana dalkooda ha dhistaano mustaqbalka waayo waa madaxdii biri waayo waxa waaye ayaga macnaha wadanka ayaga wax u bartay ayaga waxa waa dhalinyaro waxa waaye wadankan wax u qabtaan wadalkooda ha dhistaano waxa waaye deegaankooda ha dhistaano waxa waaye soo raacaano ha ku dhiiradaano raggii barnaamijka naftooda inta la dagaalay hantidaas ka keenay ilaahay subhanahu wa ta'ala ajirkiisa rabbi subhanahu wa ta'ala miisaankooda xasanaadka Allah ku kabo Allah subhanahu wa ta'ala waxaan ugu rajaynayaa raggaas meesha ay ka soo bixiyeen bedel ka wanaagsan uu siiyo waxaan leeyahay kelmadan ku daray bulshada sideedaba haday is aruursato oo isu timaada wax badan bay qabsataa maama bulshada ay kala tagta waxa dayacma midnimadeeda magaceeda dhulkeeda dhamaan waa dayacan maama bulshada ay isu timaadana wax badan bay qabsataa saas darteed waxaan leeyahay raggii Muqdisho barnaamijkan ka soo hamiyay ee lacagtan u soo dhiibay ilaahay subhanahu wa ta'ala ajir badan la idin kugu bedela wadadina wili way taagan tahay cid allaale cid aad u sii gudbin kartaan iyo cid allaale cid aad dhigi kartaan barnaamijkan ka qayb qaata waa barnaamij khayri waa sadaqa jaariya sadaqada waa laba qaybood sadaqana waa mid marka ayada anfaceeda dhamaada midna waa mid ilaa iyo qiyaam saaca wadadan inta la maraya kaari ka dhagax ninka ku shubtay
waa u joogaysaa $100 ninkii kansaday oo ciid loogu shubay way u joogaysaa sadaqaas ajirka oo socona dadka muslimiinta si guud waxaan leeyahay wadadan laga qayb qaata dhalinyaradana waxaan leeyahay jazaakumullahu khayran hadaalina lacagtiina hadda wayna soo gaartay insha Allah waxaan rajaynaynaa marar badan inay soo gaartay wada billahi tawfiiq cabdinaasir ibraahim maxamed CNA beledweyne